gudoomiyaha Petroleum Cabdirasaaq Katash ayaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool ku wareejiyay qalab caafimaad iyo gaari ambulance ay horay shirkadu ugu ballanqaaday bulshada gobolka Sool waxaana goobjoog ku ahaa munaasabada ay shirkadu ku wareejinaysay agabka caafimaad iyo gaari gargaarka degdega gudoomiyaha gobolka Sool iskuduwaha wasaaradda caafimaadka agaasimaha isbitaalka iyo mas'uuliyiin kale waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay gudoomiyahaas Cabdirasaaq Katash inaan laascanood u joogno inaan ku wareejino gobolka oo gudoomiyihii gobolku dhinac taagan yahay iyo isuduwihii guud ee wasaaradda caafimaadka gobolka inaan ku wareejino qalabay hore nooga dalbadeen wasaaradda iyo isbitaalka wada socda kaas oo ahaa inaan baabuur ambulance oo baahi ay ka jirtay deegaanada gobolka iyo qalab sariiro isbitaalku uu baahi u qabay oo naloo diray nalaga codsaday inaanu wax ka qabanno inaanu ka soo jawaabnay maanta oo runtii aan halkan maanta u joogno xafladeedii waxaan rabaa inaan maanta ku wareejiyo gudoomiyaha gobolka iyo isuduwaha gaadhigii ay naga sugayeen iyo 150 sariirood oo qalab cusub ah oo maxaan ku sheegaa kuwa halkan idin ka muuqda oo aan ahayn qalab user laakiin qalab pro new ah gaadhiga haday tahay haday sariiraha tahayba intii ay naga dalbadeen baahidoodii inaan ku wareejino 150 sariirood 2 container bay ahaayeen containerkii ugu horeeyay way kan yimid kii kalena dekadu ku jira marka la soo release garay isagana wuu imaanaya insha Allah hadii la haydmo runtii sharaf bay tahay inaan maanta aan ku wareejiyo waxaan ku wareejin doonaa gaadhiga furihiisa gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Jiire gudoomiyaha gudoon waa salaantii sidoo kale waxa hadalka iskaga dawamaray gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool iyo agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Laasanood waxaan kamanigaas shirkadaas uga mahadcelinaynaa deeqda ay soo gaadhisay gaariga ambulance ah iyo sariiraha 150 tirada gaarayso oo runtii nooc loo baahnaa baahi weyn isbitaalku qabay way idinka mahadcelinaa runtii community kale ee gobolka Sool ku nool iyo dadweynahan waxaan leenahay saasoo kale uga qayb qaata runtii gambanigu hawlo badan oo runtii xasanaada wanaagsan ay dadku u qabtay xaaladda deeqdani tii ugu horeysana maaha cabsaqti ugu dambeysana ma noqon doonto oo si wada doontaan insha Allah waana ka guddoonay gaariga imikana toos waxaan ugu wareejin doonaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool isduwaha kan dhabarkeena yaala oo aanu kala wareegnay agab aanu waliba codsanay anagoo aanu baahida isbitaalku uu qabay waa agab sariir ah iyo gaari ambulance mahadiha ka gaadho gudoomiyaha iyo kambanigu waxay uga soo jawaabeen baahida sidii ay ahayd iyadoo waliba waqti ku qaadatay in meel fog laga doono lacag aad u fiican la soo siiyo waa qalab original oo aad u wanaagsan oo full condition ah waa sadaqa dhameystiran oo aan la had lahayn oo hanti badani ku baxday sariiraha halkan yaala runtii waa sariiro qurux badan qaali ah macal furshaantoodii macal qalabkoodii macal sadkoodii wata waxaan leenahay kambaniga Haas Petroleum Allah u barakeeyo maalka iyo maskaxda cidii ka qayb qaadatay Cabdirasaaq ugu horeeyo waxaan leenahay sadaqada aad la baxdeen Ilaahay maskaxda iyo maalka iyo muruqa iyo awlaadaba haydii ku barakeeyo waxa runtii la siinayaa waa waxa ugu horeeya isbitaalka TB-da waxa ku xiga isbitaalka guud oo isaguna qayb ka qaadanaya waxaanu siinaynaa MCH-yada iyo MCH fara badan oo hadda la dhisay baa jira oo aan qalabaysnayn oo runtii inta nagu soo qaylinayo qalab aan u baahanahay oo aanu qayb ka siinaynaa waa agab fara badan oo noogu deeqayo noogu filan baahida aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdirasaaq iyo kambaniguba ambulance ay ballan qaadeen iyo sariiro 150 sariirood oo qaybtii hore timi alxamdulillah ilaah baa mahad leh way nooga soo jawaabeen baahidii cusbitaalku uu qabay sariiraha meesha ugu baahida badnaydna waxay ahayd TB-da maantada waxaan geynaynaa sariiraha xidhan insha Allah waan geynaynaa kuwa kalena waan u dhameystiraynaa shirkadda Haas waan u ducaynaynaa waxaan leenahay meeshaad ka soo saarteen hantida mid ka khayr badan Ilaahay ha idinku bedelo
baahida cusbitaalkuna aad iyo aad buu u baahi badan yahay maalinba baahi bay joogtaaye kan degdeg ah maanta inuu ka soo jawaabay farxad weyn oo gaar ah bay noo sii tahay waadna mahadsantihiin gaarigiina waan la wareegnay sariirahiina waan la wareegnay qayl jasaakum allah khayr